kulan wanaagsan daawadayaal waraysigan gaarka ah waxaynu ku eegaynaa arrintii qalbi dhagax ku saabsanayd oo hadda mar kale soo laba kaclaysay oo baraha bulshada iyo warbaahinta si weyn looga hadalhayo si aynu bal arrintaas mar kale u dhirino wax badan uga ogaano waxa aanu waraysigan marti noogu ah oo nala jooga xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo gudoomiye ku-xigeen u ahaa guddigii loo xil saaray inay arrintan baaritaan ku sameeyaan marna soo ahaa wasiirkii arrimaha amniga ee federaalka Soomaaliya xildhibaan marka hore kusoo dhawow marka xiga guddigiinii qaabkii uu u shaqeeyay iyo natiijadii ugu dambeysay aad baarlamaanka u gudbiseen muxuu ahaa haddii aan daawadayaasha xasuusino bismillaahir rahmaanir rahiim awaas waa mahadsan tahay adiga iyo bahda joog waa idinkaga mahadcelinaya fursadan aad siiseen waa sax maalmahan waxaa hadalhaynta ugu badan waxay ahayd arrintii qalbi dhagax anigu waxaan ka tirsanaa guddigii baarlamaanka uu xil saaray inay baaritaan ku soo sameeyaan waxaanan u ahaa gudoomiye ku-xigeen baan u ahaa guddiga howl badanna waa soo qabanay runtii guddiga markii aan wax yar oo horudhaca aan sameeyo inta aanan guddiga gelin waxaan rabaa horudhac yar inaan dadka aan u iftiimiyo meesha iyo sababaha ay ku bilowdeen qalbi dhagax waxaa la qabtay 23 bishii August 28 bishii August isla bishaas August 5 maalin kadibna waxaa loo gudbiyay Ethiopia waa la dhiibay markii la dhiibay kadib bishii September 6deedii golaha wasiirada waxay soo saareen qaraarkaas oo ay ku banaysanayaan ama ay ku ansixiyeen go'aamadaas waxaa ugu muhiimsanaa laba go'aan mid wuxuu ahaa waxay leeyihiin waxaan ku salaynay qaraarkan heshiisyo hore loo galay oo xukuumaddii ka horreysay ay gashay oo Ethiopia ay la saxiixatay tixraac bay u isticmaaleen oo ay leeyihiin annagoo tixraacayna heshiisyadaas hore loo galay dhiibista qalbi dhagax waxay ahayd dhiibis ku salaysan sharciga waxaa kaleeto isla qaraarkaas ay ku xalaaleysteen ama ay hoos ka xariiqeen siday u qoreen ayaga in qalbi dhagax uu geyiga Soomaaliya uu ka wada falal amni darro ah not only inuu ka wada kaliya ma aha Soomaaliya kaliya inuu falal amni darro ka waday inuu yani xiriir la lahaa ururo argagixiso ah oo isla markaasna ay tilmaameen ururka ONLF inuu ahaa urur heshiis xiriir la leh al-shabaab inuu ahaa oo ay yiraahdeen qalbi dhagaxna wuxuu waday falal amni darro ah falalkaas oo amni darro ku ahaa geyiga Soomaaliya iyo mandaqada guud ahaan oo ay ka wadaan Ethiopia iyo meelaha kale tabo qaraarkaas waxay soo saareen bishii 6 September 2017 17 bishii September baarlamaanka wuxuu saaray guddi baaritaan ku soo sameeyo sharci ahaanshaha dhiibista qalbi dhagax inay waafaqsan tahay sharciga inay waafaqsan tahay dastuurka inay waafaqsan tahay maxaa la yiraahdaa mucaahadooyinka kale ee caalamiga ah arrintaas marka guddiga loo soo diray waajibaadka shaqo ee loo soo diray waxay ahayd in la soo baaro isla markaasna qaraar iyo report dhammaystiran aan u soo gudbino baarlamaanka waa sameynay waxay nagu qaadatay muddo 2 bilood ah inaan yani soo dhammaystirno marka horudhacaasaan rabay inaan bixiyo wixii kale tusa maxaa marka baaritaankiinii waxa soo baxay markaas aad baarlamaankan u gudbiseen muxuu ahaa waxaa ka mid ahaa runtii horta baaritaanka intaan sameynin waxaan sameynay guddiga waxaan u qaybinay guddi hoosaadyo waxaan sameynay guddi hoosaadka sharciga oo baaro sharci ahaanshaha dhiibista qalbi dhagax waxaan sameynay guddi amni maadaama waxyaabaha lagu soo eedeeyay qalbi dhagax markaas ay ahaayeen amni darro waxaan sameynay guddi amni oo baaro wax amni darro oo ku shaqo lahaa qalbi dhagax qalbi dhagax haddii ay jiraan waxaa kaleeto sameynay guddi saddexaad oo siyaasad waxaa jirta guddiga naftiisa runtii markaa fiirisid yani dadka uu ka koobnaa markaa fiirisid guddiga wuxuu ka koobnaa dad xildhibaano u badan xildhibaano taageera markaas dawladda ama xukuumadda taageero
ama maxaa cabdullaahi farmaajo dad aada ugu dhidhow taageeray ahaayeen arrinta siyaasadda waxaa keenay yani markii aan hawsha guda galnay in xildhibaanada qaarkood ay yidhaahdeen arrintan waa arrin siyaasadaysan waa arrin yani haddii aanan la dhiibi lahayn qalbi dhagax dhibaato abuuri lahayd saasaan horta guddiga u magacoon waxaa jirto yani waxaa dadka qaarkood xildhibaanada qaarkood waxay jirtay inay keeneen in la gaaray in presentational la aan samaynayna ay yidhaahdaan oo ay yidhaahdaan yani qaswat alxudaybiya waagii nebi maxamed muslimka aada u yaraayeen oo ay aada daciifka u ahaayeen marxaladdii ay ku sugnaayeen marxalad lamida ayaan ku sugannahay marka waa la justify garayn karaa dhiibista qalbi dhagax yani dhanka siyaasadda marka laga fiiriyo waddanka etoobiya yani waddan noo awood sheeganayo waaye waa ku qasbaneen dad yani waddan daciifaan nahay aan awoodin maanta inuusan dhiibin marka yani waxay u arkeen siyaasiyan inay ahayd wax fiican in la dhiibo yani xildhibaanada qaarkood waaye yani dhammaantood ma guddiga ku jiray laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay runtii xildhibaanadu inay ahaayeen guddiga ka mid ahaa xildhibaano yani maskax furan aragtidooda iyo aragtida dowladda wax ka turjumayana aanan ku salaynaynin baaritaanka aan wadnay ee ku salaynayay xaqiiqada factiska markaas aan helaynay iyo xogta aan helnay inaan ku salayno go-aanka aan gaaraynay iyo qaraarka aan soo saarnay marka saddexdaas guddiyaan sameynay qaraarka wuxuu ahaa saddex waxyaabood aan fiirinaynay kow waxaan fiirinaynay sharci ahaanshaha dhiibitaanka qalbi dhagaxa sharciga ma waafaqsan tahay dastuurka ma waafaqsan yahay waxaa kaleetoon fiirinaynay ma jiraan mucaahado international ama conventions international caalami ah oo ay soomaaliya garab ka tahay oo ku qasbayay soomaaliya inay dhiibto qalbi dhagax oo etoobiya ay u dhiibto ma jiraan waxaa kaleeto aan fiirinaynay marka sharci ahaanshaha dhiibistiisa aan kasoo tagno waxaan fiirinaynay oo qaraarkii golaha wasiirada ku jiray in ururka ONLF uu yahay urur argagixiso gacanna la leh ama xiriir la leh ururka al-shabaab ayadana waxaan fiirinaynay ONLF ma urur argagixisaa adduunka yani muxuu ku tilmaamaa ONLF annaga sidaan ognahay ONLF wuxuu ahaa ilaa dowladihii civilianka oo 60kii markay dhasheen ilaa iyo waqtigan la joogo waxay ahaayeen urur raadinaya madax banaani liberation movementii ahaayeen urur siyaasadeed uu ahaa oo madax banaani iyo gobonnimo raadisa inay ahaayeen laakiin ayaga waxay ku tilmaameen inay ahaayeen in ONLF ay tahay urur argagixiso midda labaad oon raadinaynana waxay ahayd ONLF urur argagixiso miya oo runtii dhab ahaantii xiriir la leh al-shabaab midda saddexaad oo aan raadinaynana waxay ahayd qaraarka golaha wasiirada wuxuu isticmaalay heshiisyo ay yidhaahdeen horey baa loo soo galay heshiisyadaas waxaa ka mid ahaa heshiis uu saxiixay wasiiru dowlihii hore mahad salaad iyo kilinka shanaad dagaalo ka socday oo qabiili ah ayuuna ku saabsanaa waxaa kaloo jiray heshiis ay saxiixeen madaxweynihii hore cabdikariin xuseen guuleed iyo wasiirka boostada geelle oo hadda xildhibaan ah ay dhanka soomaaliya u saxiixeen dhanka kalena ay u saxiixeen rag kaleeto oo cabdi ilay oo markaas ahaa madaxweynaha kilinka shanaad ahaa ay saxiixeen asagana wuxuu ahaa ma aha heshiisyo lagu salayn karo dhiibista tixraac u noqon karo in yani qalbi dhagax la dhiibo horta baaritaankaan samaynayna intaasay ahaayeen waxay ku salaysnaayeen intaas maxaa nooga soo baxay ay weydiisay su-aashaadii waxay ahayd maxaa ka soo baxay kow horta sharcigaan rabaa dhinaca sharciga inaan aado guddi hoosaad baan sharciga u sameynay oo baaritaan sameynayay waxaa kaleetoon rabaa intaanan ka hor dhicin intii ay khuseysay ee lugta ku lahayd dhiibista qalbi dhagax
inaan yani la yeelanay interview inaan la yeelano waraysi inaan la yeelanay xogta ay hayaanna aan ogaano dadkii aan waraysanay oo aan markaas lahayn xogta wax badan bay ka ogyihiin ama lug bay ku yeelan karaan waxaa ka mid ahaa wasiirka cadaaladda oo dhanka sharciyadda aan rabnay inaan wax ka weydiino waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga waxaa ka mid ahaa dadkaan waraysanay hay-adda socdaalka Soomaaliya oo ayadana qofkii waddanka laga dhoofinayo yani maxaa ka og tahay yani markii la qaadayo يعني بروسيجركي إميجريشن كمسمى للسومر شيء إن كانوا يعني مثلاً إنها كحيرنا وهاي الديارات الصاري إن نويدينه وحاكم ده هدت كان ورئيس الإيطالي هراء النبتسوق ده وأصله قيبته وين كلها سوق بشدي يو أنت صار قيب وين كلها مكان فيريني أصلنا ورئيس يسمبلوشه أنت إيطاليه بوليسكا aan wareysano oo aan weydiinay sababtoo qofka muwaadinka Soomaaliga marka la soo qabto hadii waa in la keenaa yani police waa in soo qabtaa marka laakiin ninkan argagixisada maadaama lagu soo eedeeyay waxa soo qabtay hay'adda nabad sugidda marka waxaan rabnay inaan ogaano iyadana in yani procedure-kii sharciga ahaa la marsiin lahaa inuu mariyay in kaleeto horta yani intaasoo qofood yani warbixinta runtii yani interviewga iyo waraysiyada aan marnay waraysiyo aad u badan ay ahaayeen xogta iyo xaqiiqda aan baarlamaanka u gudbinayna waxay ku salaysnaayeen xaqiiq iyo xog aan ka helnay nooga soo dhaxbaxay waraysiyadaas aan sameynay waxaan rabaa marka dhibista qalbi dhagax sharciga ma waafaqsaneyd su-aasha ahayd dhowr siyood baan uga jawaabnay كو وحن أسوق من البرلمان كدي بس قلب دقع توبي لو ديبي إن وح شرعية ده أو أي وافق سنة دين يسجرين إن أي سنة وافق سنة دستور كالصومالية دستور كوحاجره قد بقى أساسي قد بقى هذا لا عنده دي بسته قابك لو ديبي قف هذا سنة أما قف محبوسة قابك لو ديبي دستور كهذا قدمك صدين لحدا كهلاي قدمك صدين لحدا دستورك وحان ربع إنه كل لعبة دستورك قدمك صدين لحدا دستورك فرقد يسكبد وحلاية هاي هذا سنة أما قف يعني دم اللي جوه يستوى كلية اللي جودي بكرة سوى فقط شرعي قدمك كاس حرف كيس باء أما فرقد الله بعد وحشيء يسا وإنه يجرى شرعيgaas lagu dhiibayana waxa sameynaya baarlamaanka marka sharcigi eedaysanaha lagu dhiibi lahaa horta Soomaaliya diyaar uma aha oo baarlamaanka wali ma uusan sameeysan ma uusan sameeynin mana uusan ansixinin marka dastuurka marka fiiriso dhiibista qalbi dhagax waxay ahayd arrin aan waafaqsanayn dastuurka wadankan u degsan إن يعني مواطنين الصومالية يعني كونتراكت إلا قالين دولة ما قبوا وأنا كسر الجدي دي بيستقل بالدرجة شرعية وحاجري وأن دب ونقولنا وحن ربع إن عاد وما هذا عليه رنتي أرمها سبحان الله تاجري قدوميه برلمان كمركز قدومي جواري أسفي عن نوع تاجرون ودرسني إنه لهيني شرعية ساموباهنا شرعية ساموباهنا هاي شرعية جنسية ده ساموباهنا حتى وحن يعني عبديني ضد ماشى حلوان الغرب وحيرة دورين كان الإثيوبيان وهايو أو حتى الصومال مواد ما هن حتى شرعية جنسية ده إن نوباهنا عن ماشى كأنه عن عبديني إنه ها المواد الصومالية ده وسيشرع درها الجودي بحتى شرعية الجنسية ده كون سؤال بقول لحدين لبدين أيام نوع عدي أيام أساس وقدرنا يعني قوان كاس مرك لانك الشرعية مركان فيرني لبست هذا السنة أما قف محبوس وحقيقة شرعي حركة إقامة الصومال ديسمبر اللي حتى كذا كنت سؤال بقول لحدن إيه لبدي أما لحدين سدح دينا وهاي نجعلها متكود أي قيحة قابك أما السيدة قفلوا لي بايو شرعي أسنو وحولاي هاي قف مواد صوماليات لما دي بكرو gaar ahaan markaa fiiriso
maxaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay lama dhiibi karo qof muwaadin soomaaliyeed ah oo dembi ku eedeysan haddii dembigaasi uu ku eedeysan yahay waddanka soomaaliya iyo waddanka soo dalbada qofkaas in loo dhiibo labadaba aysan u aqoonsanayn inuu dembi yahay marka qalbi dhagax waxaa lagu eedeeyay inuu xubinka ahaa sarkaal sare oo NLF inuu ahaa soomaaliya uma aqoonsana oo NLF inay tahay urur argagixisa marka midda sharciga waxaan isticmaalnay 1962gii xeerka ciqaabta soomaalida isticmaalnay waxaa kaloo tan isticmaalnay habraac ayaa la maraa marka qof la dhiibaayo qofka iska dhiib ma aha habraaca jiro habraaca wuxuu leeyahay waxa qofka keliya oo dhiibi karo waa guddoomiyaha maxkamadda racfaanka keliya ayaa dhiibi karo qof muwaadin soomaaliyeed ha ahaado ama muwaadin shisheeye ha ahaado oo dembi lagu soo eedeeyay waxaa dhiibi karo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka marka uu ka helo codsi wasiirka cadaaladda procedurekaas oo dhan lama marin wax oo habraaca oo la maray ma jiro qalbi dhagax sidaa aan kuu sheegay bishii August lasoo qabtay 5 maalin gudahoodna waxaa loo dhiibay Ethiopia waxaan rabaa marka habkii wuxuu ahaa wax qaldan in la dhiibo wax qaldan idin soo baxday mas'uuliyadda maxaa idin soo baxay mas'uuliyadda ma shakhsiyaadka qaadayo ma dawladda oo dhan xukuumadda ma qaadayso madaxweynaha ma qaadayo taliyihiina nabad sugidda yaa idin soo baxay mas'uuliyadda horta mas'uuliyadda qaybta ugu weyn يعني dad badana يعني mas'uuliyadda qaadayo hal qof oo qaadaysa ma laha laakiin waa la kala culays badan yahay mas'uuliyadda sida ay u kala culays badan tahay ayaa yani cidda mas'uuliyadda ka ahayd diibista qalbi dhagaxna ay yani loogu qiimeyn loo sheegi karaa loo dhihi karaa qofkaas mas'uulka ahaa anigu waxaan qabaa mas'uuliyadda ugu weyn horta inay yani dusha ka saaran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waddankan wixii ka dhaco asaa mas'uulka ah qalbi dhagax dhiibistiisa asaga la'aantiis lama dhiibeen haddii uu dhihi lahaa war qalbi dhagax waa la soo qabtay sharciga hal la marsiiyo maxkamad hal la keeno xitaa maxkamad lama keenin qalbi dhagax meeshaas markii la marayo dalkan waxaad ogtahay inuu fowdo ku jiray oo fowdadii uusan weli ka bixin waxaad ogtahay oona leef xubno badan in maamul goboleedyada ay Ethiopia markay u baahatada ay u dirsanaysay oo u soo qabanayeen la dhiibayay xamar dhexdeedii waxaad ogtahay mararka qaarkood in dad argagixiso lagu tilmaamo dad wax kale lagu tilmaamo kooxo loo dirsado kooxo hubeysan oo loo dirsado ay iska dhiibaan marka waddankii maadaama uusan ahayn waddan hal gacankooda jira oo horumarsan madaxweynaha saxiixiisa ma aragteen oo in lagu dirayso waa qiyaasaysiin macnaha maya madaxweynaha saxiixiisa ma ana arag mana aanan wareysanin laakiin asaga maya taas keliya ma aha waxaan rabaa dee inaan kuu sheego sababta ay mas'uuliyadda u leedahay kow horta waxaa waaye mas'uuliyadda koowaad asaa iska leh mas'uuliyadda labaadna waxaa iska leh xukuumadda golaha wasiirada intii waagaas joogtay waxay u codeeyeen qaraar loo jeeday inuu qaldan yahay oo wax su-aal aan la iska weydiinin qaraar la leeyahay oo NLF waa urur argagixiso ayay u codeeyeen waxay u codeeyeen qaraar la dhahayo cabdikariin qalbi dhagax waa sarkaal ka tirsan oo NLF wuxuuna amni darro ka waday geyiga Soomaaliya gudihiisa iyo mandaqada ayagoo aan wax su'aal iska weydiin oo aanan dhihin dabcan waxay ku eedeeyeen inuu yahay argagixiso inuu yahay wax sharci ah wax su'aal oo iska weydiiyo ma jirto horta yaa dhihi karo aweys waa argagixiso waxaa dhihi karo in maxkamad lagu soo taago inaad xuquuqdii asaasiga ahayd oo aad lahayd eedeysan ahaan inaad yacni qareen aad leedahay uu ku doodo in maxkamadda jaajka ama qaaliga markaas meesha joogo uu go'aan waxaasoo dhan ma dhicin marka in yacni gacanta loo taago oo la yiraahdo qalbi dhagax waa yacni nin dambiila horta mas'uuliyadda labaad waxaa iska lahaa xukuumadda iska lahayd laakiin madaxweynaha arrintiis waa u soo socdaa fiiri aniga hadda ka hor anigu waxaan ahaa wasiirkii amniga ahaa dowladda Mareykanka ayaa laba qofood igu timid labada qofood mid kamida wuxuu ahaa muwaadin Soomaali American ah mid kalena wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed laakiin waddanka Mareykanka asagoo yar la geeyay
ku lahaa residency ama green card ku haystay deganaansho ku haystay ku eedaysnaa indictment judge yani warqad uu soo qoray ay leeyihiin dadkan dembiyadaas aan ku haynaa hanaloo soo gudbiyo aniga wasiirka amniga ahaa maraykanka way ii yimideen waxaan u sheegay in aysan jirin wax extradition treaty ah ama heshiis naga dhexeeyo isu dhiibidda eedaysanayaasha iyo dadka maxaabiista ah heshiis annaga ee maraykanka naga dhexeeya inuusan jirin marka waa ka xumahay ma idinku wareejin karna dadkan waa dad muwaadiniin soomaaliyeeda ma wareejin karno marka arrinta aada leedahay yani maxaa la yidhaahdaa madaxweynaha roolkiisa ama doorka uu ku lahaa waa yara anigu ma aaminsanay inuu yaraa sababtoo ah doorka ugu weyn eedeynta ninka iskale horta oo qaadayo dhiibista qalbi dhagax waa asaga annaga baaritaanka markaan samayno qofka ugu horreeya aan islahayn xogta inta ugu badan uu haayaa oo yani dhiibista ku saabsan wuxuu ahaa sambaloshe dembigiisa asaga waa qirtay maalin dhaweedna idaacadaha waa ka arkayseena u malaynaa asoo leh cafisaan weydiisanaa wixii aniga intii ahayd iga soo gaartay sambaloshe wixiisa sheekadiisu waxay ahayd arrinta uu handalgaraynaya markaas uu qabtay waxay ahayd arrin farsamo arrin farsame ahayd waa ku soo wadaa arrin farsame ahayd oo waxay ahayd taliyaha ciidanka nabad sugidda oo ahaa galmudug baa ninkan laga soo qabtay soo qaad ciidamadii u dir inta keen markuu keenay sambaloshe awood uu ku dhiiba ma laha waa nabad sugid taliyaha nabad sugidda waa awood uu qof muwaadin soomaaliyeed ku dhiibo ma laha haddii aysan dowladda madaxweynaha iyo xukuumadda aysan qayb ka ahayn ma dhiibi karo sambaloshe ma dhiibi karo waa weydiina annaga sambaloshe waxaan dhahnay arrintan maadaama aan ogaanay in uusan maxkamad la keenin xitaa maxkamad military maadaama qofka argaxiso lagu soo qabto mararka qaarkood maxkamadaha militariga la geeyo xitaa maxkamad military ma geysanaan dhahnay ninkan xitaa yani si aad yani justifiable oo u noqdo xitaa maxkamada marsiinle xitaa saa u tiraahdaan maxkamad military xitaa lama geynin iska daa maxkamad oo civilian iska daay sambaloshe waa weydiino waxaan dhahnay arrintan yaa kula ogaa arrintan yani makeliga ayaa waday go-aankan dhiibistiisa yaa iska lahaa in la dhiibo sambaloshe wuxuu yidhi aniga soo qabashadiisa iyo hayntiisa anigaa iska lahaa laakiin dhiibistiisa waa arrin siyaasadeeday ahayd aniga waxaan laku leeyahay waa la amray waa la amray dabcan waa la amray maya arrinta oo soo qabashada in la amray ma uu asaga lama amray yani asaga portfolio asaga hoos timaada waayo qof baa la qabtay waxaasuu ku eedeysan yahay yani aniga amniga waa kasoo shaqeeya wasiir baan u ahaa qofkaas dembigaasuu ku eedeysan yahay qofkii in yani lasoo qabto waa wax iska caadiya procedure caadiya waaye laakiin qofka haddii lasoo qabto la yidhahdo dembigaasi ku eedeysan yahay adiga waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda ku saaran waxaa waaye inaad yani habraaci la maraayo oo sharciga waafaqsan in la marsiyaa la rabaa lama marsiin sambaloshe qaladaadkiisa waxaa kamid ahaa in habraacaas uusan marsiin oo uu haayay oo uu marna ku haayay godka jilacow marna uu ku haaya meeshii baarista lagu haayay oo intaas interrogation lagu waday adinka hadda guddigiina waa ogaateen qaladaada jira qaladkii waa la ogaaday wixii 2 sano ka hor ay ahaayeen meesha ay lahayd arrintan maxaa loo waafajin waayay tusaale ahaan natiijadii maxaa loogu camalfali waayey haddii cadaalad ay u baahan tahay maxaa garsoor loo waafajin waayey haddii ay tahay wax oo sida sambaloshe uu idaacadaha ka dhahay hal ay cafiyo hadday u baahan tahay maxaa madaxda loo dhihi waayey qaladkaana ku soo baxay oo guddiga baarlamaanka sameeyey baaritaan cafis weydiista maxaa loo dhihi waayey maxaa qalbi dhagax oo magaaladiisa u joogaa arrintan maxay Facebook u dhex taallaa kow horta waxaan rabaa inaan kow sheego yani qalbi dhagax annaga horta mas-uuliyaddana saarnayd waxay ahayd inaan yani arrinta baaritaan ku sameyno baaritaankaas wixii ka soo baxayna baarlamaanka aan u gudbino sidaa la socotana madaxweynaha go-aankii baarlamaanka waa aqbaluu yiri laakiin ma uusan dhihin ilaa iyo hadda mas-uuliyaddeeda anaa madaxweyne dalka ka anaa iska leh ma dhihin madaxweynaha waxaa la gudboon marka kow inuu yani sambaloshana waa maalin dhowd waa ka hadlayo wuxuu yiri madaxweynaha intii lugta ku lahaydba waxaan kula talinayaa inay yani cafis weydiistaan qalbi dhagax hadda wuxuu u baahan yahay in maxkamad uu fuulo qalbi dhagax muwaadin soomaaliyeed waaye baarlamaanka hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta ayaa ka soo saartay qaraar
inuusan ahayn nin argagixisaa, inuusan lug ku lahayn argagixiso, in yacni xuquuqdiisii lagu xadgudbay, in yacni si aan sharciga iyo dastuurka aan waafaqsanayn lagu dhoofiyey. waddanka Soomaaliyeedna waa yimid, xaq uu u leeyahay, iska daa inuu yimid murashax madaxweynuhu noqon karaa maanta qalbi dhagax xuquuqda uu leeyahay taasaa ka mid ah. waa nin Soomaaliyeed lagu xadgudbay, dhibaatooyin badan loo geystay. waxa kaliya oo xukuumadda iyo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la gudbaan waxa waaye inay yiraahdaan mas'uuliyadda annaga iska leh, qaladaan galnay, waxaan weydiisanaynaa cafis. ummadda Soomaaliyeedna waxaan weydiisanaynaa cafis, sababtoo qof Soomaali oo aad u dhiibto oo aad weliba ku eedayso oo NLF uu ka mid yahay. Soomaali oo dhan baa oo NLF ahayd, yacni oo NLF waa urur. arrin kale jirta, arrin kale waxaa jirta xukuumadda waatay ONLF liis argagixiso ay ku dartay oo liiska argagixisada ay ku tirisay. haddii qalbi dhagax maanta la xaqiijiyay ONLF inay dad bari ah yihiin, maxaa laga sameynaa go'aankaas? waa sax waaye, waa go'aan u baahan in yacni ay dib intay isugu noqdaan xukuumadda markaan la cafis inay weydiistaan, waa mas'uuliyadda ay qaataan. waxaa xigta waxaa waaye inay yacni qaraarkii golaha wasiirada oo aan dhahnay qaraar tixraaca sharci waafaqsan ma ahayn, inay yiraahdaan laakiin baarlamaanka ka weynoobay yiriba, ama ha yiraahdaan ama yaysan dhihin. baarlamaanka arrintaas yiri sharciga iyo tixraaca ay isticmaaleen iyo tilmaamaha ay ku tilmaameen ONLF inay tahay inuu yahay urur argagixiso waxba kama jiraan. waxaan raadinay mucaahadooyin international caalami ah oo ka hadlaya dhiibista maxaabiista. waxaa jiray 2 mucaahadaan helnay. mid waxay ahayd mucaahado isu dhiibinta, isu celinta iyo isu dhiibista eedeysanayaasha iyo maxaabiista oo ay ku heshiiyeen yacni wadamada IGAD. Soomaaliya ka mid ma ahayn oo ma aysan saxiixin mucaahadadaas. waxaa kaloo jiray African Union mucaahado oo ay sameeyeen oo ah ay ururada yacni qaabka loola dhaqmayo ururada argagixisada ah oo 1999 ahaa, la dagaalanka argagixisada ku saabsanaa. mucaahadadaasna Soomaaliya saxiixayaasha kuma aysan jirin oo ma aysan saxiixin. mucaahadadaas African Union wuxuu sheegaya oo caddaynaya uu leeyahay ururada self determination wax la yiraahdo ama xornimo gobonimo doonka ah ayahooda inay ka taliyaan raadinayo qaybka ma aha, mana lagu tilmaami karo urur argagixiso. ONLF waxay ka mid tahay siyaasiyan urur raadinayay ay ka talin raadinayay oo yacni aan ahayn yacni xitaa yacni haddii la fiiro ururka African Union wuxuu leeyahay ururada yacni Soomaaliyana waxay leedahay, xukuumaddina waxay leedahay ONLF waa urur argagixiso. meel ay adduunka kaga qoranta waxa yacni xafiisay waxay ku leeyihiin adduunka Washington waxay ku leeyihiin. mid waxaan rabaa aragtidaada inaan ku weydiiyo. waxaan 2 sano ka hor dhaceen guddigiinii ayaa la xil saaray, wuu shaqeeyay, natiijo soo saaray, baarlamaanku u gudbiyay, arrintii way degtay. hadda mar kale haddana dib u soo kacday. wixii waxaad u moodaa jub oo qof ku soo kacaysa camal. sabab maxay u tahay? ma wax oo siyaasadaysan oo anaga dhexdeena isaga faa'iideysanayna miyaa? dawlado oo banaanka ah miyaa ka faa'iideysanayo arrintan siyaasadaynayo? maxay kula tahay? maya, arrinka oo qalbi dhagax waa arrin national issue ah, yacni waa arrin maxaa la yiraahdaa qaranka oo dhan taabtay waaye. waxaan isleeyahay aniga waxa soo kiciya hadda waxay tahay arrinkan waa arrinka maxaa la yiraahdaa abuuri karo yacni jawi ummadda Soomaaliyeed ay ku tiraahdo qaladaadkii ay sameeyeen xukuumadda iyo dawladda hadda jiro, qaladaadkii sameeyeen inuu yahay. waxaan aaminsanahay qalbi dhagax arrinka number 1 ka ah inuu yahay. aan aaminsanahay aniga. maxaa hal mar loo dhameyn waayay? maxaa inta ay wixii u degaan waxaa la dhameyn karaa haddii dawladdu ay tiraahdo mas'uuliyaddii aan qaadanay, cafisna waxaan weydiisanaynaa qalbi dhagax. arrinka meel buu ku dhici, meel buu lagu ogaan lahaa, saarnaan lahaa. laakiin nin xildhibaan saaxiibka oo Cabdifataax la yiraahdaa maalmood bartiisa Twitterka wuxuu soo geliyay arrinta qalbi dhagax. madaxweyne Farmaajo iyo xukuumadda waxay ku tahay mas qabsaday bahal kaleeto oo asaga ka sun badan
oo afka ku haayo haddii uu laqana waa dhimana hadduu iska daayana waa indhabeelaa maska marka xaaladda hadda farmaajo uu ku sugan yahay waxaa waa hadduu ka aamusane dhibaato weynaa haysato oo shacabkii soomaaliyeed oo dhan waxay leeyihiin war waa ninkii qalbi dhagax shalay dhiibo xukun iyo mas-uuliyad laguma aamini karo haddii uu yiraahdo hal cafiyane ayadana waa dhibaato kale oo waxaa leeyahay war waa ninkii mas-uuliyadda qaatay nin muwaadin soomaaliyeed dhiibay marka labadiiba meel u fiican ma jirto yani arrintaas iyadoo ay jirto oo la ogyahay darteed ma moodaa arrinta in xadkeedii laga bixinayo oo aad loo buunbuuninayo oo dadka ka hadlayaba aysan bini aadamnimo ka ahayn haddii ay ka tahay dadku waxay isweydiinayaan qalbi dhagax maalintii la qabtay ilaa iyo hadda dad 2,000 oo qof ka badanaa la dilay ama qarax lagu dilay ama la toogtay ama gacanta askarta ku baxay ama al-shabaab ku baxay ama daacish ay dileen cidda haysa maxaa loo dilay ma laheeb qalbi dhagax oo gurigiisa jooga hadda oo nabadiis qaba waxa leeyahay qalbi dhagax maxaa loo dhiibay maxaa loo dhiibay xitaa lama laha qalbi dhagax ma cadaalada la waafajiyo lama laha ma fiiri dadka la dilay oo ay shabaab dileen oo inta sheegtay wax jira waay mas-uuliyadeedana waxaa waay in dad lagula xisaabtamo waay dadaa jiro wasiir amnigaa jiro xukuumadaa jirto waxa dhacaya waa in mas-uuliyadeeda dad lagula xisaabtamo arrinta qalbi dhagaxna waxay la mid tahay arrintaas oo kale la mid tahay haddii aysan ka culays badnaynba sababtaan leeyahay haddii aysan ka culays badnayn waxaa waaye hal muwaadin oo Soomaaliya oo aad diibto waxay la mid tahay adigoo ummadda Soomaaliyeed oo dhan diibay marka ahmiyadda iyo xajmiga iyo culayska ay leedahay waa culays aad u weyn oo wax la sahlan kara ma aha arrinta qalbi dhagax dhiibista qalbi dhagax way halka maxaa u aragtaa anigu halka hal oo hadda aan raadinaynaba ma jiro halkii baarlamaanka soo gudbiyay halkii wuxuu recommendations waa bixinay yani inkastoo yani qalbi dhagax maanta uu banaanka u joogo anigu halka waxaan isleeyahay inuu ku jiro in yani xukuumadda oo ay ku jiraan golaha wasiirada runtii waxaan rabaa golaha wasiirada markaan leeyahay inaan kala saaro rag ka mid ahaa golaha wasiirada runtii dhacdadaas iyo go-aankaas marka la qaadanayo wax u cuntama way noqon weyse waxaa ka mid ahaa wasiir Maria Qaasina ka mid ahayd oo iyadu diiday inay u codeyso waxaa ka mid ahaa wasiir Juxa oo aan yani ka aamusay isla markaasna diidanaa waxa socdo golaha wasiirada waa in questions la isweydiiyaa debate marka la doodayo waa in su'aalo la isweydiiyaa oo la yiraahdaa war horta ninkan ma waxay garan waayeen qalbi dhagax hal la dhiibay sharciga ma la soo marsii waaye ma intaas garan waayeen golaha wasiirada wax kale ba iska daa ala aqalla ma waxay dhihi waayeen war ninkan sharciga ma la soo marsiiyo maxkamad ma tiri hal la dhiibo intaas xitaa ma garan waayeen golaha wasiirada marka aniga halka wuxuu ku jirayaan qabaa waxa kale toon rabaa wasiirka garsoorka iyo cadaaladda asagana yani nin yani shakhsiyan xukuumadda tala wanaagsan siiyay oo yiri dadkii aan wareysan oo ka mid ahaa wasiirka cadaaladda waxaan dhahnay xukuumadda ma siisay tala sharci ma siisay legal opinion wax la yiraahdo dhiibista qalbi dhagax inay qalad tahay sharciga aysan waafaqsanayn ma siisay wuxuu noo keenay warqadii uu u gudbiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda uu u gudbiyay warqadii uu u gudbiyay xukuumadda uu leeyahay habraaca marka la fiiriyana waa qaldan yahay habraaca sharci ma raacsana habraaca sharcigana ma raacsana shuruucda waddanka iyo dastuurkana ma raacsana dhiibisteedii ayuu u gudbiyey yani warqadaasuu noo keenay anaga uu yiri waa kana aniga opinionkii ama taladii ama aragtidii aan u gudbiyey golaha wasiirada waa tana marka halka wuxuu ku jiraa golaha wasiirada horta intii ku jirta oo welina maanta qayb ka mid ah inay yiraahdaan warnimada dambiyaan galnay ummadda Soomaaliyeed hana cafiyaano waxa ay ku jirtaa halka wuxuu ku jiraa in la yiraahdo madaxweynaha inuu yiraahdo war qalad baan ka galay Cabdikariin qalbi dhagax Cabdikariin hay cafiyo ummadda Soomaaliyeedna hay cafiso inuu yiraahdo waddankan waa waddan reconciliation iyo yani lama diidayo madaxweynaha hadduu intaas qirto ma u maleynayo inuu qalbi dhagaxna diidayo intuu yimaado uu dhihi lahaa waa kaa qaatay qaladkaad gashay mar dambeetana ma dhacdeen qof muwaadin Soomaaliyeed lama diideen marka aniga saasaan isleeyahay halka inuu ku jiro aad u mahadsan yahay Cabdirasaaq xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo uga mahad celinayna waqtiga uu na siiyay aanu arrintan ama mawduucan uga falanqeynaynay aad baad u mahadsantihiin daawadayaal adinkuna